wanaagsan saaxiibayaal lamaantii meel walba joogtaan halkan waa Kalsama TV waxaanu idinku soo gudbinaa wararkii dhacdooyinka kuwii ugu dambeeyay caalamka iyo Soomaaliya qodobada xilligan haduu guul la saamaxo tabinteena aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha dawladda Turkiga oo gaaray caasimadda dalka Iran ee Tehran si uu qayb kaga noqdo shirka saddex geesoodka ee lagaga hadlayo xaaladda dhibaataysan ee dalka Syria sirdoonka Kenya oo markan wada hadalsiinaya madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo iyadoo faahfaahin guud aan idinka hayno arrimaha la xiriira sirdoonka Kenya waxay ka yiraahdeen xilli Axmed Madoobe lagu wada inuu Nairobi yimaado kadib amar ay ku siiyeen in uu markaasi ka baaqdo safarka uu ku iman lahaa caasimadda dalka Kenya ee Nairobi qodobada kale ee ku jira tabinteena waxa kamid ah jabhadda ka dagaalanta gudaha dalka Ethiopia ee TPLF oo ogolaatay wada hadal ay la gasho dawladda dalka Ethiopia xilli la xasuusto in TPLF ay markaasi ahayd jabhadda ugu tirada dheer ee dagaalka ay kula jirto dawladda Ethiopia ilaa iyo haatan ay u taaglaadahay dhinaca kalena madaxda Ruushka ee ku sugan Iran oo ka qayb galaysa shirka markaasi Astana ayaa waxa markaa ay sheegayaan in ay daneynayaan isticmaalka dollarka Mareykanka oo xukuumadda Kremlinka ay doonayso in dhaqaalaha dib ay u soo kabsiiso dhinaca kalena wararka ka imanaya dalka Ukraine waxa ay sheegayaan madaxweynaha dalkaasi waa Volodymyr Zelensky waxa uu markaasi sameeyay xilka qaadis xubno muhiim u ah dalkiisa marka loo eego dhinaca sirdoonka iyo waliba dacwad soogayaasha waxana uu ku bedelay saaxiibo in muddo ah xubno ay ahaayeen oo markan uu ku aaminay xogta sirka dalka Ukraine iyo waliba dhinaca dacwad soogida maadaama uu sheegay xubnihii hore inay ku guul dareysteen inay xogta dalka ilaaliyaan dhanka dacwad oogistana ay ka jirtay markaasi habacsanaan aad u weyn balse markan aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya intaasi aad maqasheen waa qodobadii ugu waaweyn ee tabinteena caawa bal markan madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa fiidnimadii caawa waxa uu gaaray magaalada Tehran si uu kaga qayb galo shirka saddex geesoodka ee madaxda dawladaha damaanad qaadayaasha nidaamka Astana oo markaasi ka furmi doona magaalada caasimadda u ah dalka Iran ee Tehran madaxweynayaasha Iran Turkiga iyo waliba Ruushka ayaana ka wada hadli doona geedi socodka nabadda ee Suuriya wasiirka arrimaha dibadda Iran Hussein Amir Abdurrahman ayaana sheegay in mowduuca ugu weyn ee wada hadalka Astana ee Tehran ku dhexmaraya madaxweynayaasha Iran Turki iyo waliba Russia uu yahay sidii loo dejin lahaa xiisada ka aloosan goobaha colaadaha ee Syria loona ilaalin lahaa xasiloonida dalkaasi oo in muddo ah xilligan loo helin xal waara diblomaasiga ugu sareeya Iran ayaa sidoo kale tilmaamay in xiisada amniga ee cusub ee Syria iyo Turkiga ay tahay in wax laga qabto isagoo inta ku daray inuu gudbiyay fariinta madaxweynaha Ra'iis ee ku aadan arintaasi mar uu dhawaan booqday Ankara iyo waliba Dimashq oo iyagu ah caasimadaha dalalka Turkiga iyo waliba Syria xafiiska madaxtooyada Turkiga ayaa xaddi ku dhawaaqay in Erdogan uu doonayo inuu kulan laba geesood la yeesho madaxweynayaasha Ruushka inta lagu guda jiro socdaalka labada maalmood qaadanaya ee Tehran madaxweynaheedana uu la kulmi doono si uu kala hadlo arrimaha isaga quseeya ee markaasi uu arkay inay dan u yihiin dalkiisa maadaama dhibaato ay ka taagan tahay dhanka xuduuda sida laga soo xigtay madaxtooyada Turkiga Erdogan ayaa sidoo kale ka qayb gali doona kulan saddex geesood oo uu la yeelan doono madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo markaasi hoos imaanaya nidaamka Astana inta lagu guda jirana ay markan doonayaan in wax badan la iska yiraahdo Turkiga ayaa waxa uu dadaal xoogan ugu jira nabadeynta gobolka maadaama deegaanadiisu ay yihiin kuwo u nugul colaada maadaama dawladda Turkiga xilligan aysan doonayn in ay gasho dagaal xubnaha mucaaradka ku ah ee markaasi xuduuda Syria iyo Turkiga iyagu markan doonaya inay ka soo weerartagaan hagaag saaxiibayaal wali waxa daawanaysaan tabinteena tooska Kalsama TV ayaad nagala socotaan hadii ay tahay markii kugu horeyso halkan soo gaadho waxaan ka codsanaynaa inaad ka mid noqoto saaxiibada ku xiran Kalsama TV oo channelka subscribe sarto muuqaalka la wadaagto saaxiibada aan helin xogaha caalamka ee halkan aan soo galino adigoo muuqaalka la gareynaya bal markan Ethiopia iyo jabhadda TPLF jabhadda la dagaalanta dawladda federaalka Ethiopia ee TPLF loo soo gaabiyo ayaa diyaarisay guddi wada xaajood la furaa dawladda Ethiopia sidaasina waxa wakaaladda wararka ee AFP loo soo gaabiyo ee Faransa
u xaqiijiyay afhayeenka TPLF iyadoona ay tilaabadani ku soo aadayso 20 bilood kadib markii dagaalka uu ka bilowday gobolka waqooyiga dalkaasi Itoobiya oo TPLF ay dagaal la gashay ciidamada ERDF. hadalkan ayaa imaanaya toddobaad kadib markii dowladda federaalka Itoobiya ay ku dhawaaqday guddi ka soo baaraandega suurtagalnimada wadahadal nabadeed oo lala galo jabhadda TPLF, laakiin waxa ay caqabad ka taagnayd go'aan uu xisbiga barwaaqo ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaaraha talada Itoobiya haya ee Dr. Abiy Ahmed uu ku adkaystay in wadaxaajood kasta ay hogaamin karaan midowga Afrika oo markaas uu arkayay inay tahay gunta kaliya ee ka gungaari karta wadahadal lala galo TPLF. Abiy Ahmed ayaana waxa tallaabadaasi ka diiday jabhadda TPLF oo iyadu u aragta in midowga Afrika ay yihiin kuwa dhinac u janjeera. TPLF ayaa walaac ka muujinaysay u dhawaanshiyaha ergaga AU-da ee horey u soo noqday madaxweynaha Nigeria ee Olusegun Obasanjo ee markaasi Abiy Ahmed inuu xiriir dhow la leeyahay, waxaana ay sheegtay inay doonayso in wadahadal kasta oo labada dhinac ay yeeshaan uu garwadayn ka noqdo madaxweynaha Kenya ee xilka ka sii degaya Uhuru Muigai Kenyatta. waxa aan diyaar u noqonaynaa bay yiraahdeen in aan wafdi u dirno Nairobi aan dirsano guddi markaasi xubno sare ka ah jabhadda, sida uu sheegay afhayeenka TPLF Getachew Reda, waxaana uu markan la wadaagay tafaasiil dheeri ah isagoona ka bixinin wakaaladda wararka ee AFP. hagaag saaxiibayaal, weli waxaad daawanaysaan tabinteena tooska ee Kalsama TV. markanna aan eegno iyadoo ay ku sugan yihiin madax ka tirsan dowladda dalka Ruushka afhayeenkeeda Kremlinka Dmitry Peskov, waxaana markan madaxweynaha Ruushka oo ka qaybgalaya shirka Astana ay kaga faa'iideysanayaan wadahadal kale oo toos oo ay la yeeshaan madaxda dalka Iran, maadaama dhaqaalaha Ruushka uu hoos u dhacay tan iyo markii la saaray cunaqabataynta dalkiisa xilli dagaal uu ku soo qaaday dalka Ukraine horaantii sanadkan bishii labaad. afhayeenka Kremlinka Peskov oo isagu booqashada madaxweyne Vladimir Putin qayb ka ah oo ku sugan Iran ayaa waxa uu sheegay in Moscow iyo Tehran ay yihiin saaxiibo markaasi isku dhow, isla markaana Tehran ay tahay dawlad la isku haleyn karo, isagoo dhinaca kale carabka ku adkeeyay in labada dal ay si tartiiba markaasi uga tanaasuli doonaan dhaqanka isticmaalka dollarka Mareykanka si loo qiimeeyo buu yiri baaxadda ganacsiga ee labada dal ka dhaxaysa. waxa uu sheegay isla markaana uu yiri waxaanu wada ognahay in xiriirka ganacsiga ee dhaqaale ee labadan dal uu sanadkii hore wax ka yar 4 bilyan uu kor u kacay dollarka Mareykanka, inkastoo buu yiri ay qalad tahay in lagu xisaabiyo dollarka Mareykanka. muddo ka bacdina waxaan isku dayi doonaa buu yiri inaan ka gurno dhaqankan oo ah isticmaalka dollarka Mareykanka marka aanu horumarino dhaqaalaha iyo weliba lacagteena iskaashiga qaybta maaliyadda iyo weliba dhinaca bangiyada. Peskov ayaa sidoo kale warbaahinta dowladda Iran xilli waraysi uu siinayay kaga hadlay, isagoona markaasi u gudbiyay fariintiisa telefishinka Ruush 24, waxaana uu sheegay in sanadkan ay doonayaan Iran iyo Tehran wax badan oo dhanka dhaqaalaha iyo maaliyadda inay isla meel dhigaan. sargaalkan ayaa sidoo kale sheegay in ganacsiga saafiga ee u dhaxeeya Ruushka iyo Iran uu kordhay 31% saddexdii bilood ee ugu dambeysay, isagoona intaa ku daray in isbeddelka uu yahay mid wanaagsan. sida uu sheegay, Ruushka iyo Iran waxay haystaan fursad ay ku dhistaan iskaashi si loo yareeyo buu yiri saameynta cunaqabataynta saaran dowladda dalka Kremlinka waa xukuumadda Moscow una hogaamiyo Vladimir Putin. dhibaatada Ruushka haysato ayaa uga timid markii uu ka dhaga adeegay baaqyada caalamiga ee kaga imanayay madaxda caalamka ee ku aadan in ciidamadiisa uu kala baxo gudaha dalka Ukraine, taa oo ah sababtii ugu weyneyd in cunaqabatayn dhinacyo badan leh la saaro. waxaana xilligan Ruushka uu la dhibaato dhanka dhaqaalaha oo xilligan Iran uu ka doonayo saaxiibtinimo, isagoona sameynayo galaangal dhinacyo badan leh oo markaasi ay u marinayaan saxaafadda. qodobadii ugu dambeeyay ayaan isla sii dhex mushaaxina markana warbixinta ugu xiisaha badan ee tabinteena maanta oo ku aadan sirdoonka Kenya oo kala hadlaya dowladda federaalka Soomaaliya wadahadal ay markaasi la yeeshaan ama heshiisiin kala dhaxaysiiyaan madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe.
madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa isku diyaarinaya u safrida magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxaana toos uga duuli doona magaalada xarunta ku meel gaarka u ah Jubbaland ee Kismaayo isagoona casumaad markaasi uu ka helay dawladda Kenya la baajiyay waxaana ilaa shalay markaasi soo gaarayay dalka Kenya madax ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya uu hogaaminaya agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad oo markaasi doonaya wada hadal ay garwadeyn ka noqoto dawladda Kenya inuu la galo Axmed Madoobe isla markaana la filayo in maalmaha soo socda uu ka furmo shirkaasi magaalada Nairobi Axmed Madoobe oo qorsheynaya in Nairobi uu soo gaaro 3 maalin ka hor ayay dawladda Kenya ku amartay inuu dib u dhigo safarkiisa sabab la xiriira in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu marti u ahaa dhankooda isla markaana uu ku sugnaa caasimadda Kenya una joogay saxiixidda heshiiska fasaxidda qaadka aha ajandaha ugu weyn ee heshiiskii lagu gaaray Nairobi oo dawladda Soomaaliya dhankeedana loo ballan qaaday in dadka markaasi wata baasaboorka Soomaaliga la siin doono visa on arrival oo markaasi ay ka qaadan doonaan gegida JKAA oo markaasi ah madaarka ugu weyn ee dalka Kenya qaadka ayaana lagu wadaa in todobaadyada soo socda uu taga gudaha Soomaaliya koonfurta iyo waliba waqooyiga oo markaasi aad looga danaynayo keenistiisa sida ay xaqiijinayaan ila wareedyo muhiima madaxtooyada Soomaaliya ayaa doonaysa inay isbedel markaasi ka hirgeliso Jubbaland waxaana ay xoog saaraysaa in dawladda Kenya ay ku cadaadiso in Axmed Madoobe ay ku qanciso si loo gaaro heshiis midaysan ka hor muddo xileedkiisa oo markaasi aad u dhow sanadka 2023 dhexdiisana lagu wado inuu ka dhamaado shuruudaha badan ayay markaasi wadaan labada dhinac waxaana markan wada hadalka dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya ku matalaya agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad oo markaasi xalayba la kulmay qaar ka mid ah darafyada ay markaasi qadiyadda Jubbaland qusayso ee markaasi Kenyaanka ah xukuumadda federaalka ayaa doonayso in galka Jubbaland ee yaala Nairobi uu noqdo mid laga maamulo Muqdisho si la mid ah dawlad goboleedyada kale ee markaasi aysan saameyn ku yeelan siyaasadda gudaha Soomaaliya waxaana hadda dood xoogan markaasi hareeyay hanaanka wax ka bedelida qorshahaasi oo loo arko in Axmed Madoobe uu markaasi noqon karo mid aad uga soo horjeesta maadaama isagu uu yahay mid salka ku haya siyaasadiisa gudaha Kenya dawladda federaalkana ay doonayso xilligan inay markaasi jirida siito bisha Agoosto ee sanadkan 2022 Kenya ayaa galaysa doorashada guud ee madaxtinimada iyo waliba xubnaha ka hooseeya waxaana ay markan tartan qayb ka ahayn madaxweynaha xilka banaynaya ee Uhuru Kenyatta balse galka Jubbaland oo ay Kenya saameyn ku leedahay ayaa ahaa midkii uu maamulayay sirdoonka dalkaasi Uhuru Kenyattana qayb libaax leh uu markaasi kala ahaa si joogitaanka Axmed Madoobe ee deegaanada Jubbooyinka agaasimihii hore ee Nisa Fahad Yaasiin oo dhawaan waraysi uu bixiyay siinayna Gaylan Media markii ugu horeysay uu qiray in sanadkii 2018 ay ka wada hadleen dawladda Kenya galka arrimaha Jubbaland isagoona sheegay in xilligaasi Kenya ay kala hadleen faragelin inay ka joojiso gudaha Jubbaland taa oo markaasi waraysiga Fahad Yaasiin laga dheehan karay in si cad ah markaasi Jubbaland laga maamulo Nairobi sirdoonka Kenya ay markaasi qayb libaax leh ku leeyihiin maamulka Axmed Madoobe Jubbaland ayaana la aaminsan yahay inay markaasi noqonayso halka ugu badan ee ay markaasi ku laacdami doonaan dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Madoobe haddii ay markaasi filla Soomaaliya isku daydo wax ka bedel ay ku samayso hanaanka doorashadiisa iyo waliba si socoshada Jubbaland iyadoona durba Axmed Madoobe uu isku diyaarinayo qorshaha dib u doorashadiisa oo markaasi uu arkayo in markan uu doonayo in uu isboqro qodobka ugu dambeeya ee tabinteennana waxa uu noqonayaa madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa wax ka bedel ku sameeyay hanaanka sirdoonka qaranka dalkiisa kadib markii uu sheegay in xubnihii hayay taladaasi ay ku fashilmeen isla markaana ay loodin waayeen sirdoonka iyo basaasiinta dawladda Ruushka oo dagaal baan ay kula jiraan Vladimir Zelensky ayaana markan waxa uu xilkaasi u magacaabay nin ay yaraantiisii saaxiibo ahaayeen si uu noqdo madaxa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dalka Ukraine iyo waliba nin kale oo markaasi ay aad isugu dhawaayeen oo isagana noqonaya dacwad oogaha guud ee dalkaasi isagoona ku sameeyay xilka qaadista xubnaha uu ku sameeyay inay markaasi ahaayeen kuwa ku guul daraystay iyo waliba inay
jirida siibi waayeen basaasiinta Ruushka u dhashay ee iyagu markaasi ka dhaxamaasha gudaha dalka Ukraine. Gudahan saaxiibayaal waxa inta inooga egtabintiinii wararka caalamka iyo Soomaaliya oo Kalsame TV aad kala socoteen tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.